siyaanba qaadidda tubaha tilmaaman ee dalalka Turkiga iyo Sacuudiga waxa ay bannaanka keenayaan midba midka kale ahmiyadda uu ka leeyahay dhaqaajinta qorshayaasha hortabinta u leh dhowaan socdaalkii uu hogaamiyaha Turkiga ku tagay dalka Sacuudiga waxa uu gogolxaar u ahaa in la helo siyaasad degan meeshana ka saaraysa madmadowga saameeyay guud ahaan mustaqbalka diblomaasiyadeed ee Riyaad iyo Ankara madaxweynaha waddanka Turkiga socdaalka uu ku tagay boqortooyada Sacuudiga waxaa la fahamsanaa inuu ahaa mid wax weyn ka bedelaya aragtida labada qaran iyo siyaasadaha colka iyo cadaawadda hagooganaa ee ay labada dal sanadihii dambe ku dhaqmayeen hadda Riyaad waxaa ka imaanaya fariin sida socdaal muhiim ah oo Maxamed bin Salmaan uu ku tagi doono dalkaas Turkiga dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa toddobaadkan booqashadii u horeysay ku tagaya dalka Turkiga kadib qaarajintii Jamaal Khashoggi oo sanadkii 2018 lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul sidoo kale waxa uu booqan doonaa dalalka Jordan iyo Masar madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shaaciyay in Maxamed bin Salmaan uu Arbacada imaan doono Turkiga ayna soo dhaweyn doonaan waxa uu sheegay in xiriirka labada dal la gaarsiin doono heerka ugu sareeya labada dal ayaa kala saxiixan doona heshiisyo dhowr ah inta lagu guda jiro safarka Amiir Maxamed bin Salmaan bishii Abriil ayay ahayd markii madaxweyne Erdogan uu Sacuudiga booqday sanado kadib oo xiriirka labada dal uu gaaray heerkii ugu xumaa Turkiga iyo Sacuudiga ayaa hadda isla qaatay muhiimadda ay leedahay in la helo xiriir sugan iyo siyaasad degan oo labada qaran ay ku naaloodaan sanado saameysay xiriirka labada dal oo arrimo fara badan oo labada dal ay qoonsadeenba uu qaranba qaranka kale ku tallaabsanayay tan iyo markii uu noqday dhaxal sugaha boqortooyada bishii Juun 2017 Maxamed bin Salmaan wuxuu ku mashquulsanaa dib u habaynta Sacuudi Carabiya isagoo dib u habayn ku sameeyay dhaqaalaha madadaalada iyo dalxiiska dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa taariikh ahaan lahaan jiray awood la taaban karo balse Maxamed bin Salmaan ayaa hamiga saameyn ku yeeshay qaar badan oo kamid ah kuwii isaga ka horeeyay si kastaba ha noqotee qayb kamid ah sababaha Maxamed bin Salmaan uusan ula kulmin mucaarad dadweyne oo ka dhan ah xukunkiisa ayaa ah inuu guud ahaan caburiyay dadkii loo arkayay inay saameyn karayaan siyaasadiisa balse xaqiiqdu waxay tahay guud ahaan lagama doonayo nidaamka hogaamineed gudaha dalkiisa balse cabsi iyo culays jirta awgood shacabka iyo xubnaha kale ee qoyska ka tirsan kuma dhiiran karayaan inay dibnahooda ka soo saaraan ereyo xanaf leh oo wiiqaya wax ku oolnimada hogaamineed ee Maxamed bin Salmaan